ku riyoonaya ceergaaba calan kale oo aan ka tawxiidka hay laga taagaya wallahi waad riyoonaysaa iyo bilaahi tallah waxaana ku leenahay soo dhawow dhirbaaxa aan ka soo waaqsan ay kala kulmi doontaa wallahi baan dhacayn iyo bilaahi baan dhacayn tallahi baan dhacayn ceergaaba caladka tawxiid kale ba ka taagnaanaya ilaa yoomul qiyaama hadii laga tagi waayo hadallada gafka ah ee nimanka mas'uuliyiinta ah ee reer SSC ay ku hadlaan ama ay ku riyoodaan waxa weeyaan deegaanka iyo dadku way wada garanayaan anigu reer ceergaabo maanta nin colaad kula talinaya miihi maamaya dhamaan miidiyaha dhamaantood waxa weeye waxa soo yar arintii waxaan ka hadlayaa ninkii madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahaan jiray Axmed Karash oo yaa gobolka Sanaag soo gaaray dabadna waxaan maqlayay shalay toole isagoo xalay bay soo ka hadlaya gobolka Sanaag waxaan u maleynayaa ninkaasi gobolka Sanaag inaanu aqoon u lahayn ama degmada ceergaabo inaanu aqoon u lahayn wuxuu ka sheekeynayay inay degmada ceergaabo sida gaalkacyo kale tahay oo ay tahay maartay baraxle iyo waxbuu ka sheekeynayay waxaan soo maleynayaa inuu aqoon u lahayn oo gobolka uu sheeko ku maqlay oo dadka looga sheekeeyay uu ka midka yahay ee lagu yiri ceergaabo ayaa deegaan ku tihiin waxa weeyaan gobolka Sanaag degmada ceergaabo daama ma kala laha dadkuna daama uma kala degaan waxaan u sheegayaa nin kasta oo ka hadla oo aaminsan fikirka SSC oo yiraahda ceergaabo ayaa laba daamooda waxaan u sheegayaa marka hore inaad ceergaabo soo aragto soona barato aad soo diristo marka ugu horeysa marka wax ka sheeg ceergaabo ama wax ku sheeg ha oranin waxa tiraahdaa laba daamood baa jira oo daan iyo halkee bay taalaa daanta cid gaar degan tahay afarta beelood ee ceergaabo wada jooga afarta way isku degaan weeyaan waana isku mid afar meel ay kala degan yihiin degaan gaar oo la kala leeyahay iyo qayb ceergaabo ka jirta midna ma jirto haddii se laga tagi waayo hadallada gafka ah ee nimanka mas'uuliyiinta ah ee reer SSC ay ku hadlaan ama ay ku riyoodaan waxa weeyaan deegaanka iyo dadku way wada garanayaan anigu reer ceergaabo maanta nin colaad kula talinaya miihi ama nin colaad u soo jeedinaya oo kula talinaya miihi laakiin waxaan leeyahay dadka xoqaya xumaanta ee ka sheekeynaya ceergaabo calan laga taagaya waa habeen iyo riyo weeyaan ninka ku riyoonaya ceergaabo calan kale oo aan ka tawxiidka hay laga taagaya wallahi waad riyoonaysaa iyo bilaahi tallah waxaana ku leenahay soo dhawow annaga waliba si wanaagsan ku soo dhaweynaa annagoo ah dadkii deegaanka ahayn deegaanka annagu in badan waxaanu ka shaqeynaa inay dadku nabad ku wada joogaan oo nabad ku wada noolaadaan laakiin ninka nabadda adkeysan waaya wuxuu uga tagi doonaa waxa la yiri been fakataru nima gaadho marka waxa weeye dadka waxaan u sheegayaa gobolkaasi waa nabad degmadaasina waa nabad dadkuna inay nabad iyo ku wada joogaan oo ay ku wada noolaadaan baan doonaynaa cidda laakiin wax ka raadinaysa dhirbaaxa aan ka soo waaqsan ay kala kulmi doontaa annagu markii hore waxaan u arkaynay dagaaladu markay ka socdeen laascaanood waxaan u arkaynay dad deegaankoodii dawladnimada diidan oo nidaam kala wada laakiin hadda waxaan u aragnaa nimanka halka ka soo digriyaya ee ka soo kibraya ee qoryaha soo kaxaysanaya waxa weeyaan waxaan nahay anagu degaankii aad waligiin yaalihiin meesh ku taqaaneen degaan cusub oo hor lama nihiin dadkii deganaa ee waligood yaa loo deganaa waanu nahay waanu deganaanayna kana guuri mayno haddii idinku aad dadkiina colaad u wadaan u soo qaado u keena waxa laga helaana la helaya haddii la yiraahdo anigu mar walba waxaan ahaa xildhibaan nabadeed oo nabadda ilaaliya laakiin waxa idab darro ah niman mas'uuliyiina oo ama sheeganaya inay degaamo iyo dad gaara madax u yihiin oo mas'uuliyiin yihiin oo waliba ay khalad tahay anigu aan saaray dawladda Soomaaliland in frivolio uu yimaado oo aanu arko khaladka weyn ee ay sameysay dawladda Soomaaliland inay ogolaato nidaamka noocaas iyo dadka nooca u hadlaya inay meelaha yimaadaan waxa weeye waa khaladaad dhacay weeyaan waa khaladaad u baahan in la saxo hadii Ilaahay raahdo nin kasta oo ku hamiyay magaalada ceergaabana inuu calan kale ka taagayo waan kaaga digayaa wallahi baan dhacayn iyo bilaahi baan dhacayn tallahi baan dhacayn ceergaabo caladka tawxiid kale ba ka taagnaanaya ilaa yoomul qiyaama